assalaamu calaykum. marka hore waxaan weydiisanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga aqbalo soonkeena iyo acmaashayna dhammaan. qofka acmaashiisa la aqbalo bishan ramadaan ayaa guulaystay oo liibaanay. bishan barakaysan waxaa ku beegmay dhacdooyin badan oo taariikhda muslimiinta iyo islaamkaba muhiim u ah. dhacdooyinkaas waxay u badan yihiin dagaaladii muslimiinta iyo gaalada kala dhex maray. anagu halkan bishan ramadaan fadhi, jiif iyo awood la-aan aan ku dhammaysanno, iyaguna waxay la dagaalamayeen gaalada iyagoo sooman. dhacdooyinkaas badan ee bisha ramadaan ku beegmay waxaan ka sheegi doonaa un 3 hadduu ilaahay idmo. dhacdada koowaad waxay ahayd soo dejinta qur'aanka kariimka iyo nabigeenna sallallahu calayhi wasallam oo nebinimo loo magacaabay. ilaahay qur'aanka wuxuu noogu sheegay inuu soo dejiyey qur'aanka kariimka bil ramadaan, wuxuuna yidhi shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wa bayinaatin min alhuda waalfurqaan. wuxuu noo sheegoo kale inuu habeenkii uu soo dejiyey qur'aanka uu ahaa habeenada bisha ramadaan ugu qaalisan oo ah habeenkii leylatulqadriga. ilaahay wuxuu qur'aanka ku yidhi innaa anzalnaahu fii leylati alqadr. aayadihii ugu horreeyey ee nebigeenna sallallahu calayhi wasallam ku soo degayna waxay ahaayeen sida aan wada garanayno aayadaha suuratulcalaq ugu horreeyo iqra' bismi rabbika aladii khalaqa alinsaana min calaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بالرمضان ولبا ليلة القدر أي قرآن كسو دقى نبي محمد صلى الله عليه وسلم سو دجتان كقرآن كان لغو سو دجينا وحلو مقعابي نبي صلى الله عليه وسلم. ودعضو آد مهم أو بشهر رمضان كباقمي. dhacdada labaad waa dagaalkii ugu horreeyey ee dhex maray gaaladii quraysh iyo muslimiinta oo hogaaminayay nebigeennu sallallahu calayhi wasallam, ghaswatu badrin ilkubraa. dagaalkaas oo ahaa dagaalkii ugu horreeyey ay muslimiintu ku guulaysteen gaaladii qurayshna ay ku hoogeen. maalinkaas ciidanka muslimiinta kama badnayn 340 nin ku dhowaad, halkay gaaladu ka ahaayeen 1000 qof. haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala guusha muslimiinta ayuu ugu kaalmeeyey, wuxuuna u soo diray 1000 malag oo dagaalkaas ka qayb qaadatay. dagaalka badr wuxuu ku beegmay bisha ramadaan sanadkii 2 ee hijrada. haddaba maxaa loogu magacaabay ghaswatu badr magacaas? dagaalkaas wuxuu ka dhacay meel u dhaxaysa madiine iyo maka oo lagu magacaabo badr. meeshaas waxaa ku taalla ceel loo yaqaano ceelkii badr. dhacdada saddexaad ee ugu dambaysa waa dhacdadii weyneed ee furitaanka maka, fatxu maka oo gaalada quraysh iska haysanaysay ayuu nebigeennu sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisu ku duuleen ilamaa ay la wareegeen oo maka ay noqotay dhul islaameed. sababta uu rasuulkeennu sallallahu calayhi wasallam ugu duulay maka waxay ahayd inay ka baxeen quraysh heshiiskii loo yaqaanay sulxul xudaybiya oo ahaa heshiis 10 sano ah. siday uga baxeen heshiiskaas? 2 qabiil oo la kala oran jiray banu bakr iyo khusaaca oo dagaalo badan kala dhex mari jireen ayaa jiray. qabiilka khusaaca waxay la safteen safka nabigeenna sallallahu calayhi wasallam, halkay qabiilka banu bakrna ay soo raaceen gaaladii quraysh. maadaamuu gaalada quraysh iyo nabigeenna sallallahu calayhi wasallam heshiis uu kala dhex yaalayna waxay ku qasbanaayeen labada qabiil inuu wax dagaal ah uu kala dhex marin. si qabiilkii banu bakr ayaa muddo kadib ku xadgudbay qabiilkii khusaaca. qurayshna way ku caawisay xadgudubkaas, waxayna ka dileen khusaaca 2 qof. nabigeenna maqlay sallallahu calayhi wasallam arrinkaas, wuxuuna go'aamiyey inuu u hiiliyo reer khusaaca oo makana furto. furintaankaas wuxuu dhacay bishii ramadaan ee sanadkii 8 ee hijrada. sidaas ayuu ku yahay muuqaalkeenuna gabagabo. muuqaal dambe oo faa'iido loona kulmiya. wassalaamu calaykum. بشهر رمضان صوما 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 بشهر رمضان